وادوهي وادوهي. بسم الله بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزيرك وزارة هوانك يو وزيرك حاجة هذا وزير الدولة وزارة داس وزيرك نجتك هذا وزارة وقافتي شو رمى دينتا كحاجة نديسة وزير الدولة وزارة داس ترى كحاجة كعيدة كبوليس كصوماليات قدومياشا أورك هوانك قرن كيهر قبل مسؤولين تيما هذا هرتي إذا فردوا وزير كحاجة كعشان دقة حلبانا ده لبضة قلة لما أنت محمد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب شركان ما أنت أو بشو أكتوبر يسدح تهاي أي سوق من قابيان لبدا وزارة دوت بوركان وكل جاي مقعدودو لكن لبدا وزارة دوت ومدحي يلويه دبر كنا قبل كبنادر قبل كبنادر مرة دي عن دبر كنا هاي عمود فقريه لفدبر كهدان هاي عد كستو هول قبانيسو هول شيء قبانيسنا ايتاي هول دلكان يا ددكان انفعيسو مركز تبع قطب دحادا نونهاي وانا كما سنتين قبلها قبل كبنادر runtii sidaan si lamid ah ayaa galab dhaweed halkaan isugu nimid dhalinyaradii ayaa halkaan isugu timiday Soomaaliyeed way soo abaabushay wasaaradii dhalinyarada isboortiga iyo gobolkii Banaadir oo halkaan ra'iisul wasaarihii anaga baan uga soo qayb galnay kelmadii ay soo jeedisay gudoomiyaha degmada martida loo ahay Saynab Xaabside ayaa runtii ta'siir iyo saameyn adag ay ku samaysay maalintaas dhalinyaradii maantana waxaan islaahay haddii meeshii gabdho fadhiyaan sidii way ka sii saameyn badan doontaa haddii la yidhaahdo laakiin waa loo dhahayaa heesta dhahayso haybad waxaad ku leedahay dalkaaga hooyo haybad waxaad ku leedahay dalkaaga hooyo waana lama huraane hagarla ii wax ugu qabo hagarla ii wax ugu qabo aan midaan hooy laga orane waa mahadsantihiin hadda ka hor waxaa dhacday odag gubeerre la dhihi jiray oon isla shaqay jirnay ayaa wuxuu yidhi baasabooraan goostay oo safar inaan aadaan rabay anoo rabo inaan beri safraan caawo kale waxaa soo gashay wuhi heestaan la yidhahdo haybad waxaad ku leedahay dalkaaga hooyo baasaboorkii wuxuu yidhi barkinta hoosteedaan gelshay meesha lagu duqo wuu ku baaba'o yidhi joodari hoostiisa la wili ku jiraa yidhi marka qof kastoo macno leh wuxuu macno ku leeyahay dalkiisa iyo dadkiisa uu macno ku leeyahay haddii dalkaagu macno beelo adigu macno kaligaa ma yeelan kartid dalkaynuna waxa waaye saad la socotiin muddo 30 sano ah ayaan waxaan ku jirnaa 90 ilaa 2022 waa 30 sano waaye 30 sano waxaan ku jirnaa ha fadhiisanin ha harsanin ha soconin aan ku jirnaa cunugii ma xilligaas dhasha maanta waa qaangaar waa aabe waa awoowe oo naqa kariyaa suuragal miya haddana 30 soo socota inay kuwii dhashay xilligaas ama hadda dhasheen inay sidaas oo kale ku noolaadaan maya suuragal ma calaa kulli xaal cidda la raba inay dadkaasi u hiliso waa dadkayna hadda goobta jooga ee nolosha ay ku jirto waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa mar kastaba gabdhuhu haweenku mar kastaba waa lafdhabarka ummaddan ayaga ah
waxayna u soo taagan yihiin hawl kasta haddii la qabanayo ayagaa horseed u ah marka maadaama aad hawl kasta horseed tihiin gadaalna aadan isu dhigaynina waa in leediin qiraa inaad horseed tihiin waa in leediin qiraa calaa kulli xaal mushkiladda weyn oo na haysata hadda waxay tahay maalinba meelaa wax naga haystaan hadda culayska ugu weyn oo dalkayna haysto waxay tahay waxaa argagaxisadii aan nagu qaangaarow hayso intaas annagana waa la sugaayo waa la fiirinayo waa ciyaalkiin iyo goorba toobakeen dadkooda ku soo laabanaan la islahaa waa aragteen ajaanibaa dhex joogto ajaanib ka timida dibadaha markaasay halkaanay jihaad u soo doonteen jihaadka soomaaliya oo muslima laga dhex samaynaayo oo meesha laga yimid aan looga baahnayn muxuu yahay waxba kama jiraan waa feelso calaa kulli xaal adduunka dadkani waxay isu beddeleen birigaata roosay isu beddeleen birigaata qaraabata ah la isu beddelay lacagaha laga sameeyey ayaana sababay inay intaas sii jiraan lacagahana dadkaa laga dhex samaynayaa midaa inta uu teleefoonkuu soo diro ku leeyahay waryaa wuxuu ku leeyahay maxay ahayd magaceedii waa qolyahaasi magacaas laheede waxaa lagaa rabaa inaad maaragtay zakadii iska bixiso ku leeyahay waryaa zaka wakiil uga dhiga asiga yaa yidhi zaka ii qaad yaa se weydiiye xoolaha horta zaka ma ku waajibta mase kuma waajibin miya ma ogya mase ma oga ilaan zakadu waxay leedahay waqti iyo awqaadii waxay leedahay iyo xilli ay ku go'do calaa kulli xaal annaga birigaatadaasi looma dhega nuglaa karo lamana daba taagnaa karo maalin kastana lama sugi karo ummadda soomaaliyeed shacabku markay dhibaatada ay aragtay ay ku dhaceen ilmihii yaryarka ay hadday dilaayaan hadday ceelishii biyaha ay gubaayaan hadday hooyooyinkii dilaayaan hadday aabbayaashii ay dilaayaan hadday kii masaajidka ku jiro ay dilaayaan kii masaajidka ka soo baxa hadday dilaayaan cid ay dhaafayaan aysan jirin ayna naafeynay dadkii naafeeyeen ayagana waa in la naafeeyaa markooda calaa kulli xaal ceelna uma qodnaa la yidhahdaa cidna uma maqna dalka soomaaliya annagaa dadkiisii ah cidaan annagaa inoo imaamayso haddaan sugayn in kor laga soo daatana waa habeenka xala tegey calaa kulli xaal waa is-abaabusheen dadaalaad samayseen ciidamadii aad waxaad u muujiseen inaad garab taagantihiin iyo shacabkii soomaaliyeed iska kicinaya cadowgan dhaawacyadii iyo dadkii soo dhibaatay aad booqateen oo dul taagantihiin kuwii dhintaad wax laga aasow hayaa kuwii dhaawacaya meesha loogu taga meelay isbitaallada yaalleen ugu tagteen kuwii kaleoo dagaalada ku jiraad u diyaariyoweysiin wix maaragtay ayaa diyaariyoweysiin intaasba ciday ka suuro gashan idinkaan hadda ka hor lama hayo waa ku mahadsantihiin calaa kulli xaal waxaan rabaa haddii ilaah yidhaahdo dadaalkiina labalaaba si aan maaragtay aan u noqonno soomaalidu waxay tidhaahdaa gacma wada jiray wax ku qaban karaan ilkana wada jiray wax ku gooyaan far keligeed fool ma dhaqdo cid keligeed wax tari kartaa ma jirto annagoo garbaha isqabsanaan guulaysan karnaa waana guulaysanaynaa haddii ilaah yidhaahdo maxaa yeele rarkaa naga batay culeyskaa naga batay culeyska naga bataa waxau keenay inaan dhahno maya u adkaysamayna hadda kadib calaa kulli xaal inta duurarkaas laga yimaado dhaqaalaha nagala aruuriyo in dibadaha loo ceshado dadkaynana la baabiyo ma aqbali karayno kuwa ku kaalmaynaya hantidooda ku bixinaya wuxuu la mid yahay kan dadka dilayuu la mid yahay xadiis saxiix oo rasuulka dhahaya wuxuu leeyahy calayhi isalaatu wasalaam man acaana calaa qatli imri'in muslimin bishatri kelima laqiya allaahu maktuuban bayna caynayhi aisu min raxmat illaah ayuu leeyahy rasuulka calayhi isalaatu wasalaam wuxuu leeyahay rasuulka qofka ku kaalmeeya qof muslima dilkiisa kelmad barkeed ba allaha ka dhige labadiisa indhood intuu dheclaa waxaa looga qoraa midkaana naxariista ilaahay waa ka quustay midka lacagta ku kaalmeehaya ka warrama midka gurigiisa dejihaya ka warrama midka xooggiisa ku kaalmeehaya ka warrama midka xeeladda ku kaalmeehaya ka warrama kulligood isku mid waaye islaamkaynuna ma oggola in lagu kaalmeeyo calaa kulli xaal muslimiinaan nahay mu'miniinaan nahay dadka dhiiggooda hadur maahan waa naga xaaraan annagana nooma bannaano cid kalena uma bannaano ciddii laakiin ciddii cid ku soo xadgudbayso waa la iska dhicinayaa naftaada inaad difaacata waajibay kugu taha waa mahadsantihiin raalli lahaada
sida leedin sheega fasaxan aniguna rabaa marka insha Allah wasiiraduna waa ku maasan tahay de gudoomiyaashii ururka haweenka fadhiyo heer qaran heer gobol ku-xigeenka arrimaha bulshada fadhiyo gobolka Banaadir oo saacad walba idin hortaagan iyo dhammaantiin alalaha meesha fadhido laftirkeeda alaladeeda daldalo hayso marka soo dhawaada wasiiradayda booliiska Soomaaliyeed haweenka guud ahaan kulligiin waxaan isleenahay waas wada garabsanaynaa haddii Ilaahay raado inta aan ku faanaatiinay saan kugu faanona waxaan rajaynaynaa haddii Ilaahay raado inay guushayno noqon doontaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته